kulanti wacan oo wanaagsan khayrta hawada nagala socotay meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada qodobada wararkeena ugu door karoon oo halkan aad ku dhagaysan doontaan hadduu eeba u idmo. khilaaf xoogan ayaa wuxuu ka taagan yahay Somaliland oo ay isku haystaan mucaaradka iyo muxaafidka. saaka hiirtii subaxnimo wadooyinka waaweyn ee halbowlaha ee magaalada Burco waxaa la soo dhoobay ciidamada booliiska oo meel kasta taagan. ishu waxay ku dhacaysay in dad dhalinyaro oo fara badan oo xabsi loo taxaabahayo la qaqabanayo lama oga xaalku soo noqon doono. waxaa kaloo qodobada wararkeena kamid ah dowlad deegaanka Soomaalida oo asagana maalmahan degan kadib dagaalkii ay ku soo qaadeen ururka Al-Shabaab ciidamada booliiska iyo maamulka Somali State waxay sheegeen in ay dileen dad aad u fara badan oo ilaa gaadhayo ururka Al-Shabaab oo 800 qof ay ka dileen shalay shaaciyeen laakiin ilaa maanta xaalku uu degan yahay wax dhibaato iyo problem kama jiro. waxaa igula sugan barnaamijka ilana faahfaahinaya saaxiibka Cabdi soo dhagow. Somaliland way kacsan tahay saaka hiirtii hore meel kasta ciidan booliis la taagay qof kasta oo dhalinyaro ay arkaan way qaban hayaan waxa laga yaabayaa inuu banaanbax meesha ay mucaaradku ay ka sameeyaan aad iyo aad mahdow waa maasan tahay meesha horta waa run banaanbax ayaa laga baqay maanta waa sabti insha Allah jumcada banaanbax lama diyaarin maanta sabti ayaa laga baqay in banaanbax uu dhaco marka magaalooyin fara badan ayaa lagu daadiyay ciidamada oo haba ugu horeeyaan magaalada Burco iyo magaalada Hargeysa booliiska meel walba la soo dhoobay marka labadaas magaalo ugu daran hadda meelaha oo ay ciidamada gaafureegayaan dadka iska socdo laba iyo hal u socdaan waa la qabanaa waa ognahay meesha wixii ka dhacay triibka hore in dagaal uu ka dhacay oo la isku farasaaray in sheeg maxaa la lahaa mucaaradka naftikooda bariyahan in wax hub aruursi iyo waxyaabo qabiilaysi iyo dad magaalada ay soo gelinayaan oo la sheegay waxyaabo far badan dawladda Soomaaliland ka digaysay laakiin hadda cabsidii way sii badatay oo banaanbixii inay la diyaariyo ayaa laga baqayay marka magaalada waxaa lagu abriistaba 11 subaxnimo ciidan daadsan marka qofka soo dhaqaaq maagaba waa la isku socon la yahay marka ciidamada aad bay dadku qabanayaan musabix waxa malaysaa inuu awood ciidan adeegsanayo marka mucaaradka rajadooda way xuntaa mahadow muddo fara badan qaarna dad waa laga xirxiray dadna waa laga dhibaateeyay dadna waa ognahay ilaa ay heerka loo geystay gabdhii sida loo garaacan ognahay marka musabixi awood ay isbidaya doorashadiina waxa waa 3 bilood wax amal ka dhiman culays fara badan meesha ka jiro waxaa laga baqayaa in la isfara saaro ama qaab qabiil isku bedesho ama dhibaatada intaan ay ka sii badato hadaan waxba isbedelan mahadow maamul goboleedkan Somaliland dhibaato xoog badan ayaa maalmahan laga soo sheegayaa mar waxay isku duulaan dhinacan iyo Puntland darhad ciidamo iyo waxba isku duulaan lahayo hub isku ursanay dhinacanna waxaa la sheegayaa in hadda mucaaradku ay kacsan yihiin oo ayagiyo musabix ay isku dhacsan yihiin arrintooduna muddo dheer bay soo socotay wali in xal laga gaadho ma jirto wali saaka oo ugu dambeysay waa ka ciidamo booliis meel kasta la dhoobay oo dhalinyaradana xidhxidhaysa dadku waxay isleeyihiin mar dhow waxa dhici doona seedhigi mucaaradka ay ku dhufan doonaan seedhi ay kaga ciisin doonaan laarmi mar haddii kaga ciisayaan wax alla wixii taageersan mucaaradaha waxa weey uu soo banaan baxaya waliba magaalada Burco dhammaan waxay taageersan tahay xaggay ugu badan tahay 95% waxay taageersan tahay mucaaradka marka saas darteed cabsi laga qabo yaa ciidamo la soo dhoobay bal leeyahay dagaal inuu faraha ka baxo oo ama isfara saaran shacabka iyo dawladda wala taas laga baqaa mahdo hadda waxa in ciidamadan faraha badan oo wareegay iyo dadka shacabka la caburiyay oo macnaha aan tilaab qaadi karin suuqyada ka soo adeega la oo macnaha nolol maalmeedkooda soo saaran la oo meel kasta ciidan u taagan yahay adiga naftkada caraa ku galayso waxa laga yaabaa dadka Soomaaliyeed 85 ilaa 50 wax ka badan inay soo saartaan nolol maalmeedkooda maalintii aadan habeenkina wixii ay ilmahooda u soo hoysan lahayn iyo qoysaskooda ay soo saartaan marka haddii la yiraahdo ma bixi kartid halkaana ku jireysaa maanta dukaankaada ma furi kartid meherdaada uma shaqo tagi kartid maqaayadihii iyo dukaamankii meel walba lama aadi karo haddii la yiraahdo dadkii suuqa qudaarta ka shaqeysanay ol haddii dhaqaaqina waa la xadiday dadkii adiga wax ka gada lahaa lacag dukaankaada nabad ku gaarto dadkii wax ka gada lahaa ma haysid haddii oo dukaanka aadan gaarin waxa laga yaabaa in adoo dukaanka soo gaarin lagu qabto marka cabsi far badan ayaa ka jirto Somaliland Hargeysa iyo maxaa la dhahaa Burcana xaaladoodu way adag tahay Burcana waxa u malaysaa in pressure gaar la saarayo waxa leeyahay taageerayaasha waxa ku badan nimanka ishaag mucaaradka ah aad iyo aad ugu badan waana magaalo lagu yaqaan shacabkeeda shacab mayl adag marka cabsi ayay ka dareemaysaa Somaliland musabixina mar rabo inuu doorasho qabto muddo fara badan ayaa la digayay oo la dhahay wada hadal la galo hal isku imaado haddii waqti lagu diray hal isku imaado waji ka waji haddaan waqti lagu dirayno baasha doorashada la qabanayna waa in la is arkaa marka intii oo dhanba waxba kama soo galin muddo fara badan isjiid iyo dhibaato dhacday cabsi ayaana meeshaas ka dhacday marka waxaa la isleeyahay in ugu dambeyn ishaag noqon doonto ishaag sidii laga rabay ee noqon doonto doorashadan ay dhici doonto waxaa la rajeynayaa insha Allah maalmaha soo socda in wax isbedeli doonaan mahadow
muuse bixi dadku wuxuu ku eedeyn jiray dowladda hore siyaad barre uu kasoo tirsanaan jiray oo uu kasoo gaaray xitaa generaal wuxuu ku eedeyn jiray inay tahay dictator dictatornimo uu daraadii ay dowladda siyaad barre la duntay muusana jabhad buu ka noqday qori buu qaaday wixii lasoo maray waaye arag buu ka yahay hadda ad adaygan faraha badan iyo dadkan xidhxidhi iyo dadka nimanka mucaaradka cabanaya uun la hadlaynin somalilan beelay ku heshiisay baale wax isku darsaday oo isku imaaday oo heshiiyey oo wax isku darsaday oo maamul samaystay weeye dadku haddii waxa ay ku heshiiyeen uu laga soo bixi waayana waxa weeye dadku way kala dhaqaaqahayaan wax isku haynaya ma jiro waxa isku haya oo waxay ku heshiiyeen heshiiska haddii laga baxo ninka xoog badan ma jiro marka adaygan faraha badan muxuu muujinaya wallahi horta maado waa sax muuse bixi cabdi waxaa u malaysaa inuu wax ka bartay qaabka dictatornimada naftigiisa wax badan uu ka fahansan yahay sababtoo asaga naftigiisa dowladda Soomaaliya la shaqeysan jiray qaabka wax u maamulaysan uu arki jiray hadda naftigeeda muuse bixi asaga lagu eedeynaa inuu dictator yahay oosan naxariis u sameynin dadka shacabka iyo mucaaradka intaba saxan u sameynin laakiin waxaa fiicnaan lahayd inuusan dictatornimo meel laguma gaaraye Soomaalida walaalo waxay ku dhaantay waa hore loo dhahay ina marka dadka intay iswalaashadaan isku soo dhawaadaan dhaaniyo doorashadiisa ku dhici kartaa aan muranka ka baxno doorashaduna way dhacaysaa haddii aniga aan macnaha muuse bixi aan ahayn doorashadii diyaar aan ahay laakiin igu dara muddo 6 bilood ama sanada oo aan doorashadii wixii aan ku diyaariyo gudiyadii wixii aan soo magacaabo waatii gudigii hore isba casilay aan ogeynay marka cabsidaas oo dhan ay jirto waxaa la rabaa muuse bixi inuu meesha oday ka noqdo laakiin asaga ciidankii intuu adeegsado jidadkii dadka shacabka laga xiro hal caburiyo Soomaalida xukun jecel waa lagu yaqaanaa marka xukun inaad jeclaato isku dhagijiso oo dhahday waqtigan iskaga darsana dhibaatadii ka dhacday Muqdisho waxa xasuusanaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo markuu dhaa 2 sano ku darsaday waatuu ka laabtay markuu arkay in meesha dhiig ku daadanayo marka meesha intuu dhiig iyo dhibaato ku daadan lahayd oo dad nool la dili lahaa kuwa hadda caafimaad qaban la dhaawici lahaa waxaa fiicnaan lahayd inuu wax ka bedelo muuse bixi cabdi doorashadan uu ogolaado waqtigeeda isheeg ay ku dhacdo haddii isku dhici karna oo la tashada ayagoo dhaa war gudigii odayaasha isku imaada iyo maxaa la yiraahdaa nimanka mucaaradka nin aan tashano go'aan gaarno waqti doorashada la qabto aan ku heshiino haddii noo suuro gali karin 3 bilood aan waqti ku kordhisano marka ma hada soo ku fiicnaan lahayd qodobka halka haddii aan kaga baxno dhinacay dowladeenka haddii aan aadno dowladeenka shalay waxay sheegeen in ay dileen in ka badan 800 oo ururka al-shabaab 100 noolna ay gacanta ay ku hayaan dagaalkii intii ay galeen waxay sheegeen inay soo afjareen ururka al-shabaabna ay ka guuleysteen haddana dowlad deegaanka maalmahan wax dhibaato kama jirto shalay maanta uu degan yahay xaalkooda hadda xagee marhaya oo wix kadib maxay talabsi ay qaadi doonaan horta maado dowlad deegaanka way sheegeen ilaa 800 oo askari oo ururka al-shabaab inay dileen 24 horjoogan ee ku jirto oo qaarkood ay magacyo dhaweyn Fuad Shankol kamid yahay iyo Cabdi Abu Muscab ay wili ku adkaysanayeen inay dileen inkastoo leeyahay way soo hadleen way nool yihiin marka taas waxyaabo badan sheeg iska bedeli kara laakiin 800 qofood meel lagu dilay ma sahlana 100 qofoodna lagu haayo marka waxa way warkaas shalay iyo maanta suuq aad ugu jira dowlad deegaankana aad u sheegay saraakiishu u hadashan way sheegeen marka wixii kale oo intaas meesha way degan tahay wixii kale oo intaas kasoo gudbanaad waa la socon doonaa laakiin hadda labadan bir wax dagaal iyo dhibaato dhaqaaq ma jiro ciidamada dowlad deegaankana way diyaarsan yihiin heegana ku jiraan in ururka al-shabaab mar laba soo weerarna way ka baqayaan marka mahado hadda dowlad deegaanka shalay maanta wax dhib kama jiro laakiin sheegashada saraakiisha ugu sareysa dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay waana isheeg way diyaar garoobeen wax walba way u diyaar garoobeen lafta gareen shalay waxa laga qaaday magaalada Baydhabo Addis Ababa la geeyay maxaa laga hadlo lafta gareen horta dowladda Itoobiya ayaa hoos galay lafta gareen wuxuu asagoo ka cararaya Xasan Maxamuud asagoo raali ka in Muqtaar Rabo wasiir laga dhigo waa ninkii asagoo jeebeysan magaalada Baydhabo laga soo qaaday magaalada Muqdisho laga dajiyay lafta gareen dartiis ayaa saas loo sameeyay marka maanta lafta gareen in la bahdilayo ayuu arkay oo Rabo wasiir laga dhigay rag kale mucaaradana ay jireen marka hore marka hadda wuxuu diyaarinayaa Rabo inuu Itoobiya xiriir la sameysto hadhowna sida Axmedow inuu meesha yiraahdo Itoobiya ugu hayso Itoobiyana aydan taas diyaar u tahay maadaama ay maamulka Xasan Maxamuud isku dhacsan yihiin oo dagaalka webiga Niil oo Masar ay xiriir la sameysteen marka cabsidaas ayaa jirto lafta gareenna dowladda Itoobiya ay isku dhiibay mahado kuwaas waxay qodobada wararkeena ugu dambeeyay khayrta wada nagala socotay meel ka soo joogtaan saas iyo nabadgelyo